حقيقة هذا Soomaalinahay annaga khilaafaadkeena waa badan yahay ha ahaato qoysaska oo khilaafkooda waa badan yahay dadka isla dhasheen waa iskhilaafayaan khilaaf waxaa noo sii dheer hadda khilaafkan siyaasiga ah oo aad iyo aad u moodo inuu ummaddan uu saameeyey oo Soomaalidii oo dhan ay noqdeen dad siyaasiyiin ah oo ay noqdeen siyaasaddan ay ka dhigeenba kubad la ciyaarayo oo laba koox waddanka maslaxadiisa in laga fikirin oo laga fiiriya mar kasta kooxdaada inay adkaato iyo ama kooxda kale inay adkaato arrintaas marka waxay u baahan tahay dadka ahlu xalli wal aqdiga ah dadka culimada inay ka hadlaan waa laga yaabaa mararka qaarkood dadka isku ra'yi maaha dadka waa kala ra'yi duwan yahay laakiin ikhtilaafu ra'yi la yusud fi alwud qadiya khilaaf ra'yi la isku khilaaf macnaheedu maaha in waddanka iyo jaceelkiisa iyo wadannimada wax u dhinta maaha horena u sheegnay waddanka waxaan yiri ummaddan ayuu ka dhaxeeyaa cid isxijin karta ma laha hadday saa tahay marka way jiraan marka dad ama laga yaabo in dad ajaanib u shaqeeyaan laga yaabo wallahu a'lam aniga ma xaqiijin karno ama laga yaabo in sandareerta yar la siiyo lacag yar la siiyo oo meel ay ka socdaan cidii maalan aqaanin oo rabo markaas inay dabka ay horiyaan waa qolooyinka hadda markaad aragtid social media ku batay oo aan hadalkiisa dadka siyaasiyiinta is khilaafsan la asaga hadalkiisana waxna ma furo waxna ma xiro laakiin ummaddu inuu dabka ku horiyo kaliya ayuu awoodaa taas waxay keenaysaa marka dadka aqooshooda yar inay qaataan warka oo la ilaababa maslaxatul kubra waddanka ilaalintiisa in la ilaabo oo markaas ay naqataa yaa badiyaa kale hadhowna cid ka hadasha lagu eedeeya culimada haday aamusto in la yiraahdo culimada maxay waxaan ka hadlaan haday hadlaan yiraahdo culimada maxaa siyaasadda dhaxgeliyay arrin la isku haysto siyaasad ma culimada kursi ma rabto cid ay wadato oo ay dhahayso kursigaas ha fariistana ma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala kursigan waxaa aaminsanahay annaga inuu ilaahay bixiyo qul ilaahu maaliku lmulku tu'ti mulka man tashaa walow ijtamacatu linsu waljinnu calaa an yanfacuuka lan yanfacuuka hadday adduunka dhan gaal iyo muslim isku tagaan inay kursi ku saaraanna kuma saari karaan ilaa ilaahay wuxuu kuu qoro mahan saas daraaddeed ayaa laakiin dadka cuquushooda gaabanta waxaad moodaa inay dabka ay hurinayaan haddaan kuwaas marka gacnaha la qabanin aan la dareensiinin Soomaaliyeey annaga haddaan Soomaali nahay keena dibadda jooga iyo kan gudaha jooga qolooyinka xukunka u tartamayo mucaaradka ah iyo kuwa kursiga ku fadhiyo dowladda ah haddaad aad dareemin inaan hal doon saaran nahay oo qolooyinka dhibka wada aan gacnaha haddaan ka qabanin bari ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa laga yaabaa ilaahay in fitnadaas wataquu fitna laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa dadkaas siyaasiyiinta ah oo loolamtamaya dhibka kaliima gaaraya ummaddu gaaraya waxay noo wanaagsan marka inaan hadda annaga aan arrimahaas ka hadalno oo intaan waana iyo naseexa bixin karna aan bixino waa laga yaabaa nin xaqa dadka dhan ma qanciyo marka xaqa sheegaysa waxaa laga yaabaa qof kale inuu dhibsado xaqaaga laakiin xaqa ilaahay lagu raali gareynaya cid lagu raali gareynaya ma laha haddii qofka isku dayo inuu xaqa oo ka leexdo asoo raali gareynaya qof kalena nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadkaas aa ilaahay kugu soo sallidaya oo ilaahay xaqi ugu leexato oo dadka ku raali gareyso maxaa yeelay dadkaas ba ilaahay abuuray laftigooda saas daraaddeed ayaa waxaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu tilmaamay xadiisu safiina markaad dhegeysatid war Soomaaliya hal safiina saarana annaga safiina kaliya doon hal doonaan saarannahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu qoom ayaa safiina qor tuurtay qolana meesha korey doontii ka koreen qawrana waxay ka heleen meesha hoose haddii aan gacnaha aan isqabanin waa aan wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam qolada oo kor heshay safiinada meesha kore ama doontii meesha hore ka degtay qolana waxaa qortuurka usoo baxay inay hoos meesha hoose ay degaan qolada wuxuu yiri hoos joogta markay biyo rabaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri waxay ku qasban yihiin inay dadka kor ay soo dul maraan si banaanka doonta u yimaadaan ee biyaha ee meesha ay ka darsadaan wuxuu yiri qoladii oo hoos joogtay ayaa waxay mathalayeen yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam taleegayn wuxuu yiri maxaan dadkan u dhibnaa anaga hoos joogno biyaha anaga dadka kaga dhow haddaan safiinada duleelino aan dhinac ka bajino biyaha anaga darsanayno uma baahna iyaga qoladaasna qolo kale waxaa ku jirto caqli yaro ayagana dhahaya war dadkan dhibkooda waabna dhibe ha duleelsadaan markaad fiiriyey Soomaaliya siyaasadeed hadda markaan fiiriyey mucaaradka iyo muxaafidka
waxaa weeye qolooyinkii doonta qaarna koray ka heleen waa madaxda hadda xukunka ku fadhida, qaarna meesha hoos ay taagan yihiin. hadday yidhaahaan qoladan waa dhibsanay, qolada mucaaradka aan ka taqalusno dowladda, oo yay biyaha kor ka soo doonanin, oo yayna soo agmarin, ama yay wax sheegin hadday yidhaahaan, ee qolada kalena ay yidhaahaan war anagaa biyaha kaga dhawey, hoos aan ka dulalsanayna doonteenna, biyaha halkaasaan ka cabaynaa. nabiga calayhi salatu wasalaam misaal weyn uu bixiyey marka. wuxuu yidhi haddii qoladaas ay gacnaha ka qaban, qoladii waxbaan duleelinina tiri, haddaan gacnaha laga qaban u war maxaa rabtaan, war anagana ma dhimaysaan, waan igu faraxsannahay, kaala dusheena soo mara oo biyihiina qaata, dhibna iguma qabno haddaad dhihin uu yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam, wuxuu yidhi waa halaagsamayaan, eygana waa halaagsamaya. maxaa yeele doonta haddii hoos laga bajiyo biyahaas u galayo, haddii biyihi soo gashan doonta dhan aa qirqanayso. soomaaliya saasaan nahay marka. mucaarad iyo muxaadaf waxaan leeyahay, waxaan filayaa asbaabaha sulxiga markaan kasoo hadlayay, xalaqada aan kasoo hadlayay, waxaan kasoo hadlay shuruudaha laga rabo iyo dadka khilaafka ka taagan yahan waa kasoo hadla oo ah guddiga dardaaranaa siinay.